Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamo walaalaha dhammaantiin soo dhawaada bartaad nagala socota waa Sahras Channel. Quraacda quruxda badan ayaan ila sheer garaynayaa sida aan u sameeyay quraac fudud ciyaalka u fiican dadka waaweyn inaba aan caadi ahayn. Maasha Allah intaan haysanan Allah siiyo inta haysata Allah u barakeeyo. Sidaan u sameeyay ayaan ila wadaagaya walaaladii channelka hadii aad ku cusub tahay marka kuugu horeysay tay subscribe dheh hadii aad hore noola joogtayna like iyo comment la wadaag asxaabtaada comment qurux badan oo dhiirigelina ayaan ka sugayaa oo aad ku mahadsantahay hadii aad ii samaysay inta iyada ah soo dhawaada jikada ayaan tagaynaa waa kana asxaabay halkan waxaan ku haystaa basal aan soo jarjaray barandho aan soo jarjaray si yar yar qaji hilib oodkac ama luqmad ukun iyo rooti marka intaan ayaan quraacda ka sameynayaa quraac aad u macaan ayaa iiga soo baxday marka aan soo dhameeyay digsi ayaan dabka soo saartay saliid saytuun ayaan ku shubtay barandhadii basashii iyo qajiga ayaan ku shubayaa waa shiilayaa maasha Allah waxaan ku daray maraq digaag xawaashi isku dardar ayaan ku darsanayaa milix dabka waan u gaabiyay oo ii shiilmaya intuu ii karaayo filfil shiidan ayaan haddana ku daray intuu ii shiilmaya hadda waxaan sameysanayaa rootiga ayaan jaranayaa quraac badan ayaan sameynayaa maanta maasha Allah ilaahay noo barakeeyo rootigan waxaan ka bixinayaa qaybta gudaha ah sida ayaan u kala bixinayaa qaybta kore geesaha oo adag iyo gudaha waan kala saarayaa kadibna haddana dib la iskugu celcelini doonaa si qurux badan ayuuna ku soo baxayaa marka sida rootiga u jartay barandhadii oo ii bislaatay ayaan ku soo laabtay baaquligan ayaan ku soo gudistay asxaabay waxaan ku soo darayaa rootigana waa kan halka ayaan ku diyaarsaday waxaan ku soo darayaa barandhadii markaan saa u soo bisleeyay hilibkii ayaan ku darsanaya oodkicii ama luqmadii sida aad u taqaano kadib waxaan ku soo darayaa waxyaabihii kale ukuntii iyo wixii kale aan ku soo darayana waan intusayaa waxaan ku soo darsaday ukun 10 xabo waaye aniga waxaan isticmaalayo adiga inta xabo oo isticmaalaysa ay ku xiran tahay mozzarella cheese ayaan ku soo daray si fiican ayaan u qasayaa maasha Allah quraac aad u macaan ayay noqotay walaalahay soo tijaabiyo waxaan hadda ku soo darayaa markaan sida u qasay waxaan ku soo darayaa saliid saytuun macsarada subaga saliid cad waxa aad doonto ayaad ku darsan kartaa aniga saliid saytuun ayaan ku darsanayaa afkaas ayaa igu filan okay waxaan dabka soo saaranayaa marka birti ayaan soo shidanayaa birta canjeera daafida lagu dugto weeye oo korontada batar ayaan mariyay rootiga ayaan soo saaranayaa waa 8 xabo waxaan sameysanayaa 4 xabo ayaan hadda soo saartay waxaan ku soo shubayaa alaabtii aan soo qastay ayaan gudaha ku shubayaa maasha Allah waa quraac aad u fudud soo maahan waxaan soo saarayaa asxaabtayda jiiska oo 4 geeska u jaran ayaan saarayaa 4 xabo kadib rootigii aan dhaxda ka bixinaya ayaan haddana sii duldhigayaa dhanka kale ayaan u gidinayaa labada dhinacba guduud qurux badan si uu noqdo maasha Allah waa ka diyaar weeye oo ii bislaaday kor iyo hoos guduud qurux badan ayuu ka noqday qaybta kalena sida baan ka dhigayaa maasha Allah waa inoo fiidiyowga dambe inta ayaan ila sheer gareynayaa kheyr badan ayaan rajeynayaa